inkastoo muddooyinka dambe magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay in nawaaxisha la ka aragay qashan fara badan iyo cooshadiyo isticmaalaan dadka ganacsatada iyo shacabka may baatana geeka maamulka degmada Baydhabo isku guuleysaday in uu san hal saar hoolasay shirkadda ka magacaabo Daryeel and Clean oo aan qaabilsan dhinaca nadaafadda degmada gudoomiyaha degmada Baydhabo Cabdullaahi Cali Watiin oo shirjara ay doo arrimogasay ku saabsan ka gobol xafiishay Baydhabo iyo ka sheegay in arintaasi ay ku dambeeyay kureed madii shacabka magaalada Baydhabo iyo ku caabadeen inta badan nadaafad darrada ku jirta gudaha magaalada Baydhabo may bano istilmaamay in codsigaasi isku ku jawaabay shirkadda cusub ee ka shaqeeyaysa howlo nadaafadda magaalada Baydhabo anoo fadlan ka hadal barnaamijkan may buu mardool ku leeyahay shirkad Daryeel iyo Clean Nation isku oo aan ka talagalnay may buu ka shaqeeyay hygiene magaalada Baydhabo oo aan hagaajin nadaafadda iyo bilicda magaalada Baydhabo iyo hagaajida taasoo oo ka danayna in la hanaga sheegay markaas nadaafadii bilicda iyo magaalada Baydhabo may buu dib lahayn may buu golana kama mulhaan koonfur galbeed magaalada degmada Baydhabo may soo banay tartan iyo soo bani oo aan ka talagalnay in uu ka cabirna shirkadaha capacity ama awoodan leh in may barnaamijkan nadaafadda magaalada Baydhabo iyo handal garay kan ka shaqeey korona may buu aaminsan marka dartiya tartankii dhowr shirkadood may buu hayaa aan tartantii dhowr shirkadood ma khadam marka shirkadda Daryeel iyo Clean Nation la soo may buu hayaa ya tartankii ku guuleysatay dhamaan guddiga iyo nidaamka difada may buu tartankii may buu guuleysatay soo dartiya maamulka degmada iyo maamulka gobolka Baay may si official may baan ku dhawaaqayna in shirkadda may buu la guuleeyay nadaafadda magaalada Baydhabo may buu in ka shaqeeyta marka dadka reer Baydhabo dhamaantii ma sheeganay siisan ogti mar badan may barnaamij la aqoonayay in Baydhabo may raayay qashin shay iyo nadaafadda may buu la hagaajiyay su'aalo badan maamulka may buu ku warsaday way ku weydiiyay madimaarno idaacadaha fadhiyana su'aalaha may buu lan warsamay buu ka mid haytay marka su'aalay kin doon jawaabtay may nagatahay in shirkadda may raayay Daryeel iyo Clean Nation may buu uu ku wareejin nadaafadii may magaalada Baydhabo uu ku wareejin may buu ya nagatay marka la ka shay lahaay beledka nadiif ma nadiifiyo ma raayis la hay marka ma sheeganay ka dawladda hoos ahaan in uu wakiilani in ka Daryeel iyo Clean Nation may buu meel loo wareegto barnaamijka nadaafadda magaalada loo wareegto gudoomiyaha degmada Baydhabo Cabdullaahi Cali Watiin may bas soo kala soo sheegay in shacabka reer Baydhabo leen ku baahan yihiin in la shaqeeyaan shirkadda isla markaasina iyo la macaamilaan siyaan shal dareeran howlo nadaafadda ee la fadahay in lagu bilaabo magaalada Baydhabo waa kumar kala Cabdullaahi Cali Watiin gudoomiyaha degmada Baydhabo arrimogasay ku hadalaaw meelinka baahanya meel hayso walaalaha wali fuuday dabcan walaal ma jir doona oo qarshaad may buu la qadaad doona may buu dadka bulshada may buu ya jira doona marka oo waan dad qofkana dhiban aragaan oo fuuday may buu in idis ama xaafidis may buu kanadi fot may buu soo fuuday may buu ya jira doona marka insha Allah bulshada wala may buu qarshaadkaas yar iyo shirkad may buu fuuday laakiin amaw shirkadda ma fadaan may buu qashankii oo tuurin may buu in dadka may buu baas bilaasha warst may buu marka qaabkaas insha Allah loo shaqeeyo shaqada ma isdiiwaangelinta shirkaddan may bilaabadaas 20 bil Janaayo oo geeka ka astaysan may banaka egtaa 5 bilaha dareerta Maxamed Nuur Maxamed Cabdullaahi telefishinka caalamiga ee Koonfur Galbeed Soomaaliya Baydhabo.